توفيق الله يديم وافجي كتابك عن صار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحائق والله وحائق والله إيغو بالله إيغو بالله إيغو تالله إيغو تالله وأن مقع إلهي وأن مقع إلهي ugu dhaaranaya in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diinta dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii waxaan maanta goobjoog u ahayn labadii wasiir oo cusbeyd wasiirka boostada iyo wasiirka kalluumaysiga dhaartoodii dastuuriga ahayd ay marayeen yaan goobjoog ka ahayn aadaan ugu faraxsannahay. waxaan rajaynaynaa in kuwii mas-uuliyadda iyo xilka loo magacaabay guto inuu ilaahay ka dhigo. waxaa laga shaqeynaya waa dowladnimo, waxa loo shaqeynayana waa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed. nin walba mas-uuliyaddiisa iyo waajibaadka saaran waa waajibaad adag waaye. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwii xilkooda iyo mas-uuliyadda loo dhiibay iyo wasaaradaha ay mas-uulka ka yihiin isku hayo oo sidii loogu sharciga ahaa u wada inuu ilaahay ka dhigo. annagana dowlad ahaan aadan ugu faraxsannahay inaad maanta ka soo qayb gashaan xukuumadda inkastoo dad soo shaqeeya aad tihiin. wasiir Fanax 4 sano hore iyo wuxuu ahaa wasiir xukuumadda koonfur galbeed 3 sanana wuxuu ku jiray nasasho haddana wuu soo noqday. runtii nin wanaag badan lagu ogyahay dadka reer koonfur galbeedna ay aada u jecel yihiin iyuu ahaa. xilka iska meerto ahoo maalinba nin yaa la tijaabinayaa, laakiin dee waa nin aada loogu faraxsan yahay oo taageero fiican haysto oo aadna mabdi'iyan u aaminsan koonfur galbeed waaye. wasiirka boostadana sidaas oo kale nin dadkii dhismihii ugu horreeyay koonfur galbeed ka soo shaqeeyey buu ahaa oo reer koonfur galbeeda. soo dhowaada, shaqo wanaagsan, hambalyo, garabkiina ilaahay ha galo, shaqadan allah idiin fududeeyo. meeshii ay joogtay baa kolley kasii wadi doontaan hadduu ilaahay yidhaaho. shaqo iyo wasiirro kale in ka horreeyey oo mas-uuliyado badan soo sameeyey ayadiyaa dhammaystiraysaan insha allah. aada iyo aada u mahadsantihiin. guddoomiyaha maxkamadda sare iyo mas-uuliyiinta kale oo goobjoogga ka ahayd dhaartan ayagana waa mahadsan yihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.